Asalaamu calaykum. Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdikariim Siciid. Anigu waxaan ka tirsanahay hay'adda la yidhahdo New Manor Public Health Initiative iyo waxaan bulshaan ka tirsanahay LA Task Force. Marka maanta xagga waxaan soo istaagay inaan ka hadlo oo tallaalka COVID-19. Tallaalka waxaan ka soo qaatay Scarborough, Maine, meel la yidhahdo oo ilaa 40 daqiiqo xagga ka jira ayaan tagay markaa ka soo qaatay tallaalka. Horta markaan meesha tagay tallaalka dad qaadanayay badan oo line baa jiray. Marka line-kii baan galay. Marka naag baa ii timid i weydiisay maanta maxaad u timid way igu tiri waxaan ku yiri tallaalkaan qaadanayaa. Marka way i weydiisay tallaalka ma ballan baa leedahay haa baan ku yiri. Marka ballantii markaan galay warqad baa la i siiyey. Warqadaha markasta inta badan demographic la yidhahdo oo dee magacaaga iyo meeshaad degan tahay da'daada waxyaalaha caynkaasi oo ka sheekeynaysa warqadii baan buuxiyey. Nasiib daro anigu maadaama luqadda ku hadlayo dee anigu qof la imay ballamin laakiin haddaad u baahan tahay wax kuu turjumo turjumaan waa lagu keeni karaa oo maad kaxaysan kartaa oo kuu turjumi karaa. Kabacdi warqadda markaan buuxiyey line kale la i geeyey oo check in la yidhahdo meel daaqad oo dee dhakhtarada kale waad aragteen meesha check in lagu sameeyo. Kii markaan tagay isaguna wuxuu weydiiyey warqaddii aan buuxiyey wuu iga qaaday wuu eegay markaas anigu isaguna i weydiiyey ninkii dhakhtarka la ii geeyey dhakhtarkii markaan fariistay dhakhtarku wuxuu ii sharaxay tallaalku wuxuu yahay waxaa laga sameeyey iyo labada nooc oo tallaal uu ii sharaxay. Marka miiskaan anigu fariistay dee dhakhtarkan u tagay tallaalku hayay Pfizer baa la yidhahdaa Pfizerkaasaan qaadanaysaa buu igu yiri. Marka anigu tallaalka anigoo qaadan ka hor su'aalaan weydiiyey waxaan ku yiri waxaan haddaan qaato ma wax uu yeelayaa waxaan shaki badan baa dadka dee magaalada iyo suuqa iyo dee adduunkaba laga sheekeeyaa bal iga sheekee wixii oo dhan buu ii sheegay waxaa laga sameeyey iyo tallaalka waxaa loo qaadanaya faa'iidadu leeyahay. Maxaa irbaddu waa irbad yar weeyaan laakiin ma aragtay isagu markuu anigu dee shaarkan iska saaray markaan garabkayga u dhiibay dee irbadda uu igalinayay irbadda in igu mudo markuu diyaar noqo igu yiri wuxuu igu yiri needle oo dee waa irbaddii markuu igu yiri anigu waxaan u malaynaya wali inuu mudayo laakiin irbaddii isagoo hore igu muday iga saaray. Marka aniga Cabdikariim ahaan wax aan dareemay waa maxaa la yidhahdaa sidii marmar taqsidu markay saaran yahay magta waxba dareemay saasoo kale bay ahayd xanuun male waxba maan dareemin. Irbadda markaan qaatay kabacdi bas ninkii wuxuu yiri irbadii waad qaatay marka wuxuu igu yiri meel baad fariisanaysaa waxaa la eegayaa irbaddu marmar dadka qaarkood jirkooda u isbedelaa inay bararaan ba laga yaabaa ama inay dib ku xanuunsadaan wixii baa meel baa lay fariisiyey ilaa waxaan fadhiyey meesha adigu 20 daqiiqo aan fadhiyey. Kabacdi igu soo noqnoqonay waa la weydiinayay sidee tahay wax ma dareemtay madax xanuun ma dareemtay waxba maan dareemin alxamdulillah. Marka anigoo fayuum baan tagay anigoo fayuum baan ka soo noqday meesha. Tallaalkii markaan qaatay aan fariistay 20 daqiiqo markaan dhammaystay aan soo baxay anigoo soo bixin ka hor marka meel waxaa jirta oo ku qoran darbi weyn ku qoran tallaalkii cudurkii waan ka adkaanay COVID-19 dee waan burburinay waxaan ku burburinay tallaalkii baan soo qaatay marka anaa isku sawiray social media-gana waan soo dhigay marka waan dee anigoo dee tallaalka qaatay tallaalka noociisaan qaatay COVID-19-kina waan burburinay baan marka aan oran doonaa hadduu ilaahay marka waxaan aniguna bulshada u sheegayaa tallaalku waa tallaal loogu talagalay COVID-19 iyo cudurkan caabuqa ha la qaato waa siduu la sheegayey waxaa loogu talagalay marka dadka qaadanayo waa frontline worker waa community health worker DSP iyo wixii dhakhtarada ka shaqeeyo intaasi waa loo ogol yahay. Talabaad waxaa loo ogol yahay odayaasha da'doodu yihiin 70 iyo wax ka weyn. Marka anagu bulshadeenu inkastoo nagu yariin 70 iyo wax ka weyn laakiin inta 70 iyo inta ka badan da'doodu Ilaahay gaarsiiyey tallaalkan inay qaataan waa muhiim u baahan yihiin. Waayo haddaad aragtiin main waxa dhimanayo dhan waxay ahayn waa dad waaweyn oo dee duqayaasha dhan baa dhammaaday imankana tallaalka waxaa la siinaya waa iyaga. Marka anagu waan ku da'daasi nagu yariin laakiin inta da'da oo ku timid ama da'da Ilaahay gaarsiiyey waa inay tallaalkan ka faa'iidaystaan inay qaataan. Bulshada weyn wali lama oga markaan tallaalka qaadanano. Maaskagan la qaadanayo dad badan oo baa is weydiiyeen waa la weydiiyey tallaalkii koowaad waan qaatay kii labaad wuxuu ballansan yahay marka bisha 3aad 11keeda ilaa bisha 3aad 11keeda maaskigaas kama dhigayo. Markaan ka labaad dooska labaad qaatano maaskigaas kama dhigayo waayo waxaa loo baahan yahay tallaalkan bulshadeenu 70% ama 80% in lagu stano kale marka 70% 80% hadday wada qaataan dadku heredity immunity waxa la yiraahdaa jira marka dadku jirkeenu dhaxgalaya kabacdi maaskiga iyo dee noloshii caadiga aan ku soo noqon karaa laakiin ka hor maaskigaas kama dhigano social distancing sidaan imika u wadno waana wadnaa gacan dhaqidda waana wadnaa wixii oo dhan waana iska ilaashanaa. Tallaalku isla markiiba daweyntu noqdo wixii aan ku jirnay nagama soo saari karo. Waxaa su'aal fiican baa weydiisay sorry jaamac kula
ها marka waxaa jirtay su'aalo badan la isweydiinayay talaalkan COVID-19 dee inaan nagu qaadano in kale. Horta markii talaalka la ogolaaday oo dee la sheegayay Maraykan lagu sheegay, dadka madow talaalkan waxaa loogu talagalay in dadka madow oo nambarkooda la yareeyo Afrika oo dhan in lala wareego oo dee China iyo Maraykanku inay wada qaataan. Waxyaalaha caynkaasa laga sheekeyn jiray. Marka aniga laftaygu markii hore talaalka kumaan degdegin. Aniga horta walaalkay baa ka shaqeeya oo isbitaalka ka shaqeeya Atlanta oo respiratory therapist weeyaan. Marka waa frontline kuwa ka shaqeeyaan muddo muu qaadan markaan weydiiyey waxaan ku yiri maxaad u qaadan weyday wuxuu igu yiri maya aniga talaalkaan ka baqayaa waana dee high risk oo dee mar kasta qaadi kara COVID-19 aniga laftaygu markaa su'aalo badan baan weydiiyey dad badan dhakhtaraan weydiiyey marka 7 dhakhtar oo madow oo Maraykan ka tirsan oo markay yiraahdeen talaalkan waa inaan qaadanaa waayo caddaanku meel kasta imanka Maraykanka caddaanka wada qaadanaya halkan imanka duqayaasha caddaanka oo dhan waa la siinaya way qaadanayaan waa loo geliyaa dhakhtarka waxaa ka shaqeeya anagu nambarkeenu ku yaryahay iyaga ku badan caddaanka way wada qaateen dhakhtarada waxaa ka shaqeeya oo dhan caddaanku way qaateen dadkeedna way ku yaryihiin marka haddii dadkan talaalkan ugu talagaleen annagana waxna yeelaan dadkoodu may siiyeen taas anigu wata maskaxda gelinaya talabaad talaalkan waa talaalka hortag oo dee COVID-19 dadkooda dhammaaday inay dadka dhamanayo in loogu duwaya la rabaa sooma annagu imika haddaan qaadan weyno hadhow aakhirka waxay noqon doontaa in shuruudo lanagu xiro waxaa laga yaabaa in lanagu xiro iskuulka carruurta ma tagi karaan waxaa lanagu yaabaa in lanagu xiro shuruudo haddaad rabtid inaad Afrika booqatid talaal haddaan haysan ma bixi kartid baa lagu waranaya xashka laftigiisa hadaad tagasid talaalka haddaan haysan ma tagi kartid baa lagu waran karaa maxaad sameen waa run waxaan hadduu ilaahay igu talagalay dad kastoo dhimanaya laakiin wuxuu ilaahayna de inaad adigu aad dawo aad meesha jirto inaad raadsatid sooma marka talaalka saasaan ku qaatay